dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa dastuurka haddii lagu waafajiyo diinta islaamka aniga waxaan ahay dad diinta islaamka ku dhaqmo boqolkiiba boqol muslima marka haddii diinta islaamka lagu waafajiyo dastuurka qof diidi kara ma jiraan isdhahaa diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa dastuurka iyo diinta in la iswaafajiyo waxaan u arkaa inay wax wanaagsan tahay dastuurka iyo diintu haddii marka dastuurku meesha yimaado khasab waa in diinta la waafajiyaa si dastuurka iyo diintu ay noqdaan dad wax isleh oo ma garanaysa wanaagsan diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa anaga ka islaam ahaan maadaama aan ahay dad boqolkiiba boqol islaam sunni ah waxaa waajib nagu ah anagu inaan dastuurkeenu ku turjumaay waxyaabo maxaa la dhahay diinta islaamka inuu beesigu yahay mar walba sababtoo anagu waxaan ahay dad boqolkiiba boqol islaam ah Soomaali ah sunni ah wixii diinta ka hor imaanayna mar walba anagu ma qaadan karno diinta iyo dastuurkiisa waafaqsan sidee u aragtaa si dastuurkeenu ku qoran ku xusan inuu diinta saldhig u tahay ayaa ku xusan saadaradeed dastuurka iyo diinta la iswaafajiyaa waxaan u malaynayaa waa horumarka ugu weyn aanu gaari karo haddaanu Soomaali nahay